qamaar, guuldaro, afduub, dad tiradooda ay ka yartahay 500 oo qofood, dil joogto ah, ku qamaarid naftooda ay ku qamaarayaan dadkaasi isla markaana ay ku qanacsan yihiin. Astaamahaasoo dhan waxaa kulansaday filimka Kuuriyaanka ah ee lagu jiray Kuuriyada Koonfureed. Muuqaalkeena daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa filimkan waxa uu ku saabsan yahay dhimashada boqolaalka qof, lacagta iyo guusha cidda ay raacayso. Sidee buu ku noqday filimka ugu caansan caalamka iyo sidoo kale filmaanta ay soo saartay Netflix halkee lagu jiray filimkani? Dhammaan su'aalahaasoo dhan waxaan kaga jawaabi doonaa muuqaalkeena. Halqabsigeena ayaa ah tabin iyo tusaale iyo tusmo xooggan ayaad ka helaysaa channelkan. Waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan ku qancin doono oo aad ka bogan doonto insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هديان موقالكين uguda galno Sam Guyun wuxuu ahaa mid faqiir ah, wuxuu ahaa mid balwad ka dhigta qamaarka isla markaana lagu leeyahay deemo fara badan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday asigoo markaas joogo guri hooyadiisa asigoo quraacanayo. Hooyadiisa ayuu wuxuu u weydiiyay in markaas ay lacag siiso. Lacagta markaas uu weydiinay ujeedka uu kala waxay ahayd in markaas uu soo iibiyay gabadhiisa hadiyad iyo wixii la mid ah. hooyadiisa waxay siisay lacagtii markaas wuxuu u fahmay markaas in ay ku yartahay isla markaana waxay u kordhisay lacag kale. Markii ay hooyadiisa lacagta siisay kadib waa ay ka dhaqaajisay. hooyadiis markii ay ka tagtay kadib wuxuu u qaatay kaarka hooyadiis ay leedahay isla markaana wuxuu kala soo baxay bangigeeda lacag fara badan. lacagtii ayuu wuxuu dhigtay qamaar si markaas ugu faa'iideysto isla markaana lacagta ugu soo celiyo. qamaarka ayuu ku guuldareystay in badan kadib ugu dambeyntii ayuu ku guuleystay lacag aad u badan isla markaana uu ku farxay. lacagtiisa heerka ay gaarsiisay in markaas uu siiyo gabadha markaas boostada joogtay in markaas lacagta qayb uu ka siiyo asagoo markaas faraxsan farxad daraadeeda. lacagtii ayuu qayb ka mid gabadhii siiyay kadib waxa uu u baxay banaanka asagoo ku faraxsan guushiisa. wuxuu meel aan fogeyn ka arkay dad burcadbadeed ah oo markaas asiga deen ku lahaa. nimankii asiga markaas deenta ku lahaa ayaa markaas soo bursaday isla markaana wuxuu u soo cararay dhanka markaas uu lacagta ka qaadanaya moolkii ayuu gudaha u soo galay. markaas gabar ayaa ku dhacday isla markaana waa uu kufay. markii uu kufay kadib nimankii burcadbadeed ayaa kor imaaday kadibna waxa ay weydiiyeen deenta markaas ay ku lahaayeen iyagoo markaas ku sameynaya jirdil. jawaabkiisa ayuu baaray asigoo markaas ujeedkiisa yahay in markaas lacagta uu ku soo guuleystay nimankana uu siiyo. markii jawaabkiisa uu baaray kadib wuxuu dib u xasuustay in lacagta markaas uu ku guuleystay gabadha ay qaadatay isla markaana shilka ay kaga faa'iideystay halkaasna ay kaga xaday lacagta. gabadha lacagta ka jiibsiibtay sidoo kale iyadana waxay ahayd qof burcad ah. nimankii markii ay ka waayeen wax go'aan ay lacag ah way ay jirdileen isla markaana sanka waxa ay ka geliyeen bir halka ay ugu tageen asigoo markaas dhigbaxayo. waa uu soo baxay waxa uu ku soo laabtay gabadha markaas boostada fadhiday halkaasna lacagta uu ku siinay marka uu faraxsanaa. gabadhii ayuu weydiiyey markaas lacagta oo markaas hore u siiyay. gabadhii way u soo celisay lacagtii markaas yareed asigoo la yaaban ayaa waxa uu galay markaas tartan bombila ah. wiil yar ayaa ka caawiyay tartankii ilaa ugu dambeyntii tartanka ayuu ku guuleystay. tartanka wuxuu kaga faa'iiday ama kaga guuleystay baakad yar oo markaas ku duuduuban xaansho. baakadii ayuu soo qaatay kadib hadiyadii markaas gabadhiisa uu wadaayay wuxuu rabay in markaas uu ka dhigay baakadani. gabadhiisa ayuu markaas wuxuu geeyay maqaaxida markaas uu geeyay baakadii markaas asigoo aan fiirinin sabraaski iyo wax markaas ku jira uusan kala kulmi doono uusan ogeyn ayuu baakadii gabadhiisa hor dhigay. cunto ayay cuneen. cuntada kadib baakadii ayuu soo bixiyay. gabadhiisa ayuu u furay halkaas ayuuna wuxuu ku arkay baskoolad markaas ka daaraysa afka dab. markaas kadib gabadhiisa waa uu soo waday wuxuu ku dhahay maalin kale ayaan kuu keeni doonaa hadiyad. hooyadeeda ayuu u keenay gabadhii. asaga magaciisa waa Sam Guyun, gabadhiisa magaceedu waa Gayon.
gabadhiisa markii uu geeyay hooyadeeda waa uu soo baxay wuxuu imaaday bosteejada tareenka asigoo markaas meesha fadhiyay waxa uu imaaday nin qurux badan oo si nidaamsan u labisan halkaas ay isku wareysteen waxa uu soo bandhigay markaasi ciyaar magaceedu waa dhakji ninkii waxa uu dhahay haddii aad ciyaartan ku guulaysato waxaad leedahay 100,000 oo Korean ah oo u dhiganta markaasi $84 ciyaartani waxay leedahay laba baakad ayaa la isku dhufanayaa oo markaasi kala kalar ah midna uu yahay mid gaduud ah midka kalena uu yahay mid buluug ah Samgyun mar walba ciyaarta u gafo waxa ku dhacaysay dharbaaxsho waayo shardiga ciyaarta u yaalo waxa uu ahaa haddii mar aad guul dareysato waxaad leedahay dharbaaxsho mar walba uu garaacay ninka markaasi suudka watay isla markaana labisnaa dharbaaxshada ayuu ku waday mar walba uu guul dareysto Samgyun dharbaaxshada uu waday ugu dambeyntii ayuu guuleystay Samgyun markii uu guuleystay kadib waxa la siiyay hadiyada markaas uu qalmay ee loo balan qaaday ee ahayd $84 markii la siiyay kadib waxa loo raacsiiyay dhikaarkaas oo cadeynaya in markaas haduu game kale uu rabo isla markaana uu la soo xiriiro si markaas uu hadiyad u qaato dhikaarkii ayuu soo qaatay lacagtii waxa uu ku soo laabtay xaafadiisa markii uu soo laabtay kadib halkaas waxa uu kula kulmay Samgyun saaxiibkii hooyadiisa halkaas ay ku wada sheekaysteen waxay u sheegtay saaxiibkii hooyadiisa in markaas wiilkeeda uu jiro wadan kale isla markaana uu shaqeysanayo asagna uu yahay markaas caajislow waa uu soo baxay wuxuu imaaday markaas guriga markii uu imaaday kadib hooyadiisa ayaa waxay ku wargelisay in markaas ay guurayaan xaaskiisa oo hore u furay ay kala tageen gabadhiisa iyo seegeeda isla markaana ay u socdaan Mareykanka markii arinkaas uu maqlay waa uu qoostay waayo gabadhiisa ma soo ceshan karo habeenkii waxa uu ku mashquulsanaa sawirka xaaskiisa iyo gabadhiisa ma uusan ahayn mid awood u leh in markaas uu soo ceshto xaaskiisa iyo gabadhiisa waayo waxa uu ahaa mid faqiir ah arinkaas kadib Samgyun waxa uu bilaabay in markaas uu waco ninka markaas sharadkii qamaarka la dheelay nambarka daayo uu siiyay isla markaana uu la xiriiro nambarka ayuu wacay meel ayaa lagu balamiyay isla markaana waxa uu tagay goobta balanka waxa la soo hordhigay gaaran nooca raaxada ah halkaas ayuu gaariga ka raacay markii uu gaariga raacay waxa lagu furay gaas hawo iyo shucaac isla markaana wuxuu ku soocay goobtaasi oo uu ku meel dawarsamay halkaas ayayna ku dhamaatay qaybtii koowaad ee filimka waxaan dhameystiri doonaa qeybaha soo socdo tixanaana waa uu fara badan yahay ilaa wuxuu gaari doonaa qeybaha 5aad 6aad iyo wixii la mid ah fadlan muuqaalka like saar si uu gaaro asxaab fara badan waad ku mahadsantahay tixgelintaada iyo sida muuqaalka aad u daawatay qaybta kale waxaan ka bilaabi doonaa markii uu gaariga raaco meesha uu aadi doono falcelinta uu kala kulmi doono hantida uu ku guulaysan doono sida uu xaalkiisa noqon doono iyo qeybaha kala duwan ee markaas soo socda ee taxanaha